la dagaalamayna waa maamulka qoriga inoo sigta ee dhiigeenna iyo maalkeenna iyo nafteenniiba xalaashaday oo doonaya inuu caalamka u xalaaleeyo waxay marayaan inay yidhaahdaan innaga wayna dileen markayna dileen oo dhiiggeennii xalaashadeen oo yidhaahdeen guryahooda ha la dumiyo carruurtooda ha la dilo madaafiic ha lagu garaaco masaajidadoodii iyo dhulkoodii cibaadada ha la garaaco waxay inoo soo gaarsiiyeen haddana inay caalamka inoogu yeedhaan dhiiggoodu waa xalaalo waa argagixis daawanaysa bahashan bulshada Soomaaliyeed oo dhan baan anigu tusayaa cadaawada musabixi iyo inta uu xukuumada maamulo waxa weeye ay u hayaan dadka bulshada reer SSC Khaatumo oo ay doonayaan inay ku ciribtiraan oo ku baabi'iyaan cadaawadooda ayaa soo ifbaxday waxa weeye qadbadatil baqdaa min afwaahim ma tukhfi suduruhum akbar waxay waxa weeye afka kale yihiin waa la maqlayaa laabaha iyo waxay gacanta ka sameynayaan iyo ficilkood waxay qarinayaan aad buu u weyn yahay oo ay qarsanayaan cadaawada ay hayaan waxaan leenahay insha Allah taala daroonkan waxa lagu duubayay meesha bulshadu ay joogto sida la arkay dhakhtaradii oo la dumiyay iyo meelo badan oo masaajido iyo madaaris iyo meelo wax lagu baranayay iyo iskooladii iyo meelaha bulshadu ku badan yihiin in la dhacayay marka daroonkuna ay sawirasay marka GPS ka lagu hagayay bay tusaysaa iyadoo ilaahay cadaawadoodii iyo dhibta ay hayeen in badan ilaahay meelo badan dadka kaga badbaadiyay haddana cadaawadda ay hayaan bay tusaysaa inay doonayaan inay wax kasto ay adeegsan karaan adeegsadaan waxaan leenahay insha Allah taala wixii hore aad samayseen ilaahay waa dumiyay khasaarahan Allah idinku celin doonaa diyaaraddiini daroonka ahayd oo ugu qaalisanaydna waa taa hadda la idinka soo riday oo shacabku ay soo rideen kadib markay muddo badan daba socdeen oo ay marar badan arkeen iyadoo wax duubaysa ay markaa xabadihii la waayeen waqtiyada qaarkood waxaan leenahay insha Allah taala waa taas haddana biidnillaahi tabaaraka wa taala sida ilaahay horeyba bulshadan ugu gargaaray oo idinkaga caabiyay oo Allah subhanahu wa taala idinkaga hiiliyay haddana Allah hiilkiisi uusan u dhamaan waayo qofka la dulmiyo Allah waa u hiiliyaa oo Allah subhanahu wa taala dulmiga dadka la dulmiyo rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu sheegay ilaahay inuu dhaartay oo ilaa ansuranaka walaw ba'da hiin waan ku hiilinayaa muddo kadib ha noqoto ahadiisna qaarna waxay tusinaysaa inay xitaa ilaahay daruurta uu ka leexiyo baryada qofka la dulmiyay marka waxaan leenahay insha Allah taala waa arinta keenaysa in wax alla wixii aad wadeen iyo keydkii iyo dhagartii aad ummadan u maleegayseen ama ha noqoto dilalkii hore oo qorshaysnaa oo waxa weeye aanu qaarkood qarinayno markaan xaqiiqo sheegno in badan baanu qarinayno waxyaalaha haddii aanu sheegno aanu isleenahay waa la isku rogmanaya markii aanu ogaanay musabixi maamulkiisa meesha ay ka baxeen waxaa soo baxay sira khatar ah oo qaarkood haddii la sheego aanu isleenahay arlada ay isku rogmanaysa oo in bulshada cadaawadeeda la sii xoojiyana laga fiican yahay waxaanu leenahay insha Allah si bulshooyinkan annagan cadaawadooda sii xoojinaynin waxaan leenahay waxaa soo baxay musabixi iyo maamulkiisa iyo xitaa maamuladii ka horreeyay intay Soomaaliland waxa weeye qolada sheeganaysa ay haysteen waxa weeye goboladan SSC Khaatumo inay markaa cadaawad badan ay meesha ka muuqato baa tusaysa waxa aanu qarinayno ka aamusan horeyna waanu sheegay barigii horreysay xitaa dagaalku uusan dhicin laakiin mudaharaadyadu dhaceen magaalada mudaharaadyadu ka dhacayeen baan sheegay in waxa weeye aan idhi waxa weeye gabadhaha ka wamulisiyo nin weyni nin reeru weyn sida ay waxay wax u ogyihiin waxma sheegaan marka xaqiiqadu waa sidaas waxyaalaha aanu hadda ogaanay bay ka mid tahay waxyaalo badan baanu hadda ogaanay oo khatar ah oo gobolkan ka dhacay ama dilal ha noqdeen ama waxyaalo kale ha noqdeen marka waxaan leenahay insha Allah taala hawlahaas hadda halka u dhaafi maayo waqtiga xisaabtan uu yimaado oo maxkamad la isla galo baan sheegi doonaa insha Allah taala waxaan leenahay biidnillaahi tabaaraka wa taala hawlahaas waxba maleegii iyo dulmigii dadkan lagu hayay ay ka gilgisheen insha Allah waa sida ay uga gilgisheeno waxa weeye ilaahay subhanahu wa taala sida uu ugu hiiliyay bay xaaladdu noqon doonto shacabisa soo taagay oo diiday dulmigii lagu hayay oo dulmigii looga garaabi waayay oo ka gilgishay inay dulmiga iska qaadaan waxaan u malaynayaa cid waxa weeye wax ka qaban karta inaysan jirin waxaan xusuusanahay dhowr iyo 80kii ayaa waxa isku dayay Eritrea la yiraahdo la soo afjaro waxa isu kaashaday qolyihii dawladdii markaa Itoobiya ka talinaysay iyo Ruushka ciidamadii Ruushka xoogga badnaa iyo waliba cid badan oo kale ay hogaaminayaan waxa loogu magac daray weerarkii xidigta cas
marka weerarkii xidigta cas baa loogu magacda marka Eritrea buurahay ku jireen waxa la yiraahdaa hal bil lagu soo afjari doon marka BBC da beriga aad warka u faafin jirtay waxaan la yaabnay marka nimankii Eritreanka ah buuraha ku jiray aan gawaarida qoryuhu u saarnayna rasaasta yar yar ku dagaalamay qoryaha yar buuraha kula jiray dhowr iyo 10 casho markii dagaalkii socday ayaa ciidamadii Itoobiya kuwii Ruushka iyo waxa la wixii waxa weeye la socday ayaa dib u soo baxay Eritrea ka soo baxay aakhirkii waa ta keentay Eritrea inay xorowdo oo ay maamulkeedii gaar u dhisato oo ay dawlad gooniya noqoto waxaan leenahay insha Allah taala maanta anakuna insha Allah taala Eritrea berigaasi gawaari iyo qoryo uma saarnayna annagu waxaan leenahay maanta kama Italiyarin Eritrea waxaan leenahay insha Allah taala waa isdifaacina maamulka waxa weeye gobolada yadan iyo degmooyinka yada iyo dhulka yagana intii hore looga baxay mooyaane inta yar hadda la sii joogo gooja cad iyo wadada la soo marayana insha Allah waxay noqon doontaa in iyadana laga baxo oo ay saafi garowdo oo xorowdo oo ay ka xorowdo dulmiga iyo khayr darrada insha Allah dulmiga iyo khayr darrada aanu iska qaadayna waxaan leenahay shucuubta yaan la colaysiinin dadka shucuubtu ha is dhowreen wax shucuubta dhibaato u keenaya ma rabno wax shucuubtu ku ciloobaan ma rabno wax ay maaragtay dad daalimiin ka faa'iideystaan ma rabno saan horeyba u sheegay shucuubtu ha is ixtiraameen ha wada deganaadeen waxaan ka digayaa dadka shucuubta u hanjabaya ha iska daayeen magac isaaq yaan la isugu hanjabin magac dhulbahante ama magac daarood ama mid hartinaya la isugu hanjabin laakiin waxay arrintu noqon doontaa in maamulka daalimka ah oo dulmigiisa loo adkeysan waayay oo dadka uga garaabi waayay dulmiga uu ku hayo oo inuu ka daayo ballan qaadi waayay waxaan leenahay insha Allah taala kaas ayaa dagaalku ku socdaa cidii isaga soo raacdo un bay arrintu ku ekaan doontaa insha Allah taala intaasan ku soo koobi doonaa waxaan leenahay insha Allah ilaahay baa heeliya waxaan leeyahay insha Allah taala ummadda reer SSC Khaatumo iyo cidii u soo heelisay hiil walaal iyo cidii u soo heelisay dhamaanteedba waxaan leeyahay insha Allah taala iska joojiya idinku ma maqli karno wax midnimada dhaawacaya ma maqli karno cid is aflagaadeynaysa ma maqli karno cid isu marinaysa waxa weeye warbaahinta wara aan sax ahayn waxaan rabnaa cid kasta oo ka shaqeynaysa wanaag iyo isku duubni iyo isku xidhnaan ayaan u baaqaynaa waxaan leenahay insha Allah taala wax lagu qabsan karo oo dulmiga la iskaga qaadi karaana waa taas waxa horumar lagu gaari karaana waa taa qofkii arrinta is yiraahda dhinac kale u leex ama damca inuu hadal leexiyo ama furfur u muuqdo inuu dadka kala furfurayo ama u muuqdo inuu hadal qolo uu la jeedo midiyaha marinayo waxaan leenahay bulshadu weynay meel uga soo wada jeeda horeyba waxa la idinku baabi'iyay oo aad dulmiga isaga celin weydeen oo aad ismidnimadiin iyo isku xidhnaantiina wax isku mid ah aad u qabsan weydeen waa sidii marba qolo dhinac loogaga yeedhayay waa arrinta marka aanu damcnay inaanu shir qabanno oo maamulka Muuse bixiyo kuwii ka horreeyay baanu kala hadallo dhibaatada gobolka haysata marka intana laga leexdo loo yeeran jiray waxa weeye qabiil loola shiri jiray oo waan ka hadlay mudaharaadyadii beriga oo bilaamay kuwii ka horreeyay dadka reer koonfureed lagu dulmiyay lagu raray dadka Soomaaliyeed koonfurta ka soo jeeda lagu reerayay waxa weeye kaas markii aanu xitaa damacnay beriga inaanu shir qabanno aanu nidhaahno waxa weeye ka hadallo hawshaas waxa weeye in markaa lagu bilaabay guddigii markaa la qabtay oo gudoomiyaha aanu yeelanay oo aanu xitaa maamulkii gobolka u sii sheegnay inaanu u shir hayno Muuse bixi iyo maamulkiisa ay markaa nagu bilaabeen siyaasadoodii ahayd inay dadka u kala yeedhaan markaana qabiil dadkii loola shiray inta yadii guddida ahaydna laga tegey markii dambana naloogu hanjabay ma hadli kartaan haddaad TV ayaa idin fasaxay inaad hadashaan inaad warbaahin qabataan saxiixna lana ka qaaday inaan dib u hadlin horey baan u sheegnay baan u malaynay marka insha Allah tabaaraka wa taala yaan dib leydin ku soo celin waxaan leenahay shacabka reer SSC Khaatumo iyo cidii u soo hilisay hil walaal yaan leydin ku soo celin wixii oo kale wixii idin ku soo noqonin in mar dambe laydin ku bilaabo in dib leydin kala furfuro ama qof hadalkii aad u dhageysataan ama caado qaate lacag yar qaadanaya waxa weeye loo yeedho oo wixii dadkaaga lagu baabi'inaya adiga in maaragtay aad dusha u ridato waxaan leenahay waa tii uu ka gabiyay gabyaagii abwaankii uu yiri waxa weeye dhashaaday sugtaa xaajada dowrataa abid waxa weeye insha Allah waa tamaanta ina haysata oo dhalinyaradeennu ay gaadheen inay yiraahdaan
aniga igu yidhaahdeen xitaa intaan kacdoonkani bilaabmin waxaanu iska saari doonaa maamulka Muuse Biixi marka abow inta aad aniga wiilashayda qaar ka mid ah igu yidhi inta aad dadka aad adigu ugu yartahay markay dhammaadaan maamulkan way iska dulqaadi doonaa bay yidhaah waayo dulmi baana haysta aanan u adkaysan karin dadka iyagii baa la laynayaa waxa weeye dumarna looma dhaafin carruurna looma dhaafayo waxa weeye haddana maca daalika waxa nooga garaabaya ma jiraan marka dulmiga way iska qaadi doonaa laakiin intiina waaweyne horta naga dhammaada marka maanta waxaa soo dhowaaday qoladii maaragtay aniga iga yarayd baa saaxada soo gashay raggii iga yaryaraa baa saaxada soo galayo waa raggii lahaa markaa way iska dulqaadaynaa dulmiga markaa dulmigaa iska dulqaadeen insha allah qof u duleeya oo u liida yaanu jirin waxaan leenahay insha allahu tacaala iyagaa ka gilgishay waa ugu kaalmaynaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala raallina waa ka nahay inay iska dulqaadaan waxaana leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala baa guusha idin siiyey waad guulaysateen guushiina waa dhammaystiran tahay wax yar baa ka hadhay 10 baa ka dhiman guushii 10kana ku dara insha allah hala kala ilaaliyo reeruhu hadriska hala ilaaliyo waxaynu la dagaalamaynaa waa maamulka qoriga inoo sigta ee dhiigeenna iyo maalkeenna iyo nafteenniiba xalaashaday oo doonaya inuu caalamka u xalaaleeyo waxay marayaan inay yidhaahdaan innaga wayna dileen markayna dileen oo dhiiggeennii xalaashadeen oo yidhaahdeen guryahooda ha la dumiyo carruurtooda ha la dilo madaafiic ha lagu garaaco masaajidadoodii iyo dhulkoodii cibaadada ha la garaaco waxay inoo soo gaadhsiiyeen haddana inay caalamka inoogu yeedhaan dhiiggoodu waa xalaalo waa argagixiso marka insha allahu tacaala argagixisana waxaa ah bay ila tahay kuwa guryaha duminaya ee carruuraha iyo reeraha guryaha ku dumiyey ee masaajidadii dumiyey ee madaaristii dumiyey ee magaalada dadkii lahaa ka qaxiyey iyo carruurtii oo carruurtu uga carareen oo carruurtu ay leeyihiin marka lala hadlo waanu ku nidhaahnaa ciyaalada ma guriga maydinku celinaa magaaladiinni waxay yidhahdeen horta Muuse Biixi iyo ciidankiisii madaafiicda nagu garaacayay ma ka baxeen saasayna leeyihiin ciyaalku marka insha allahu tacaala markaasay soo noqon doonaan ilaahay Muuse Biixi iyo dulmigiisa ka fogeeyo intaasan ku soo koobaya